waxay ku baraysaa nolosha dabiicigeedu waxyaabo badan oo ay ka midka yihiin aayadaha kawniga ah ee dhaqaaqaya. aayadahaasi waxaa tusaale uga soo qaadan doonaa geela oo Eebbe weyn uu xataa ku xusay aayadaha Quraanka Kariimka. waxaa loo qaybiyaa geela laba nooc, waa Mongolian Camel iyo Arabian Camel. Arabian Camelku waa geel ay Soomaalidu dhaqato, waa geel ka caan adduunka intiisa badan, gaar ahaan qaaradda Afrika waa mid ku baahay. isla mar ahaantaasina waxaa la aaminsan yahay inuu asalka faraciisa ku salleeyahay asxaabtii iyo wadamada Carabta. isla mar ahaantaasina waxaa jira geel kale midkaasoo loo yaqaano Mongolian. isla mar ahaantaasina midkaas waa mid leh laba kurus, waa mid kale oo muuqda. waxaa laga helaa dalka China iyo sidoo kale wadamo badan oo ka tirsan Aasiya, gaar ahaan Hindiya. isla mar ahaantaasina waa geel aad u tiro yar, baryahan dambena la sheegayo inuu sii dabar go'ayo, waana mid kale oo muuqda. mid kasta waxa uu leeyahay laba kurus oo gaar ah. inta badanna geelu wuxuu kaga duwan yahay xoolaha kale, inta badan waa manfac badan yahay, caanihiisuna waa dawo. waana mid kale oo muuqda midka loo yaqaan Mongolianka, waa mid kale labada kurus, waa mid ka awood badan midkeena aan dhaqano, waana kuwan labaduba iyagoo wada jooga. weligaa miyaad aragtay ma u fiirsatay oo maag istaagtay neef geel ah midkaas oo wax buufin la moodo ama beebe leh ka soo ridaya dhinaca afkiisa? dadka qaarkood waxay moodayaan carabkiisa, balse ma aha, waa wax kale. isla mar ahaantaasina middan waa waxyaabaha aan la isku dayin in la taabto. laga yaabaa haddii aad taabato inaad waxyeello kala kulanto ama uu ku qanin neefka geeli, isla mar ahaantaasina cadho badan uu kuu muujiyo. middani ma aha carabkiisii, waxaa loogu yeedhaa doobta. waxay sidoo kale gaar u tahay kuwa labka ah. awr kastaa ma laha inta badan. awrta qaarkood ama badankooda markay qooqan yihiin ayaa lagu arkaa midkaan lahayn doobtani. waxaa loogu yeedhaa gulaan, inta badan waa guuxa oo kaliya. marka guuxana inta badan waxa ay dafiinta iyo wixii ka agdhow ee shimbiraha. isla mar ahaantaasina middani waxay ku taalaa daanka sare. isla mar ahaantaasina waa waxyaabaha geelu oo cajaa'ibka ku yahay. inta badanna geela waxaa la sheegaa inuu ka mid yahay xayawaanada ugu cajabta badan marka aad loogu fiirsado. doobtaasi neefka marka la qala xataa lagama helo. inta badanna kuwa dhadiga ayay ku soo jiitaan kuwa labka ah, iyagoo sidoo kale kaga difaacanaya kuwa labka ay ka agdhow doobtani. isla mar ahaantaasina ay tahay hanjabadii baalaxofta. waa astaan muujinaysa awood badnaan iyo sidoo kale xoog badnaan. doobtu markastay weyn tahay waa markasta uu soo jeedinaya kuwa dhadiga. sidoo kalena markastay doobtiisa weyn tahay awrka waa markaste uu xoog badan yahay, soona jeedinayo kuwa dhadiga. haddii ay qaraxdo doobtu ama si kasaba looga saaro, waxay sababi kartaa inuu awrkaasu tarmi waayo. kuwa dhadiga ahayna ay awood darro bidaan, isla mar ahaantaasina soo jiidashadii ay ka baxda meesha uu soo jeedinaya kuwa dhadiga. waxaa midaasi aad u garanog dadyawga Soomaaliyeed ee meelaha miyada geela ku dhaqda. awrka inta badan la doonaya tarantiisu inay geela ku sii mid ahaato. doobta haddii geel jira kale ka qarxiyaan, waxaa laga qaadaa magdhow ama awrkaasi awru dhigma oo isagu doobtii leh.